jaal madaxweyne waa ku salaamanay marka hore marka xiga maadaama madaxweyne Puntland ahayd ayaamaha kan waxaa dagaalo ka socdeen magaalada Gaalkacyo marka madaxweyne bal xilliga aad madaxweynaha ahayd Gaalkacyo bal war ma naga siin kartaa sidee ahayd bismillahir rahmaanir rahiim marka su'aashaas aad warsatay waxaan ku sheegayaa anigu waxaan ahaa nin wax badan joogay magaalada Gaalkacyo dhismihii markii la dhisay galmudug madaxweyne u horeeyay kiimiko kulli rag wada saaxiba baanu ahayn waa wada shaqayn jirnay go'aan baanu gaari jirnay go'aankaasoo ay aad uga shaqayn jireen beelaha degan labada dhinacba oo odayaal waxgarad ah iyo dad go'aan leh oo ka adag shaqadooda ka adag ama heshiisay galaan aan weligood ka bixin ayay ahayd xal kasta waa heli jirnay dhibaato hadday dhacdo annaguna waa soo celin jirnay ninka xaggayaga dhibaato ka sameeya ayaguna waa soo celin jireen ciidanku waa wada shaqayn jiray annagu waa isu imaan jirnay anigu meel la arkaan mari jiray waa tegi jiray wax problema ma jirin laakiin intii hadda oo dame oo dhan waa la socday inkastoo aan banaanka jiray waa la socday si fiican baan ula socday dadkiiba inay gadoomeen baan u malaynayaa maxaa jira waxa ila yaable labada madaxweyne imaaraadkan jooga hadda heshiis fiican baa la galay wax la algalay aan xallin karin mashaakilka dowladaha ay nin la arko dowladdu xakumo uusan xakumi karin waa nasiib darro jirta midda labaad waa buunbuunis badan ayaa laga samaynayaa dagaaladaas nin la arko mid la arkaba waa faanaya waxaas adeer dagaal wax lagu faano ma ahan nabadgelyaa la rabaa nin ka qaadi karaana ma jiro hadal weeye waxa aan maqlayno hadda la leeyahay meelo badan laga wado oo laga buufinayo oo laga shaqaynayo xumaatada dadka wada degan ayaa dan waxay ugu jirtaa inay nabad iyo wanaag ku noolaadaan haddana maanta wixii aan maqalnay waa ku faraxsannahay laakiin ma aqaan say ku hergeli doonto maxaa jira maalin la arko seebay u dhici kartaa intii go'aan la gaaray heshiis la gaaray misena xabaddii subaxdii bilaabanayso waa nasiib darro waxaan leeyahay mudug oo dhan ama zoonadaas oo dhan Puntland iyo galmudug ayagaa dan isugu jirta inay heshiiyaan meel kasta wada jeestaan magaalada sideedii ay dhaqaalaheedu isku xirnaa ay looga shaqeeyo waxaan rajaynayaa hadda kismaayaa la aadayaa oo kismaaya maxaa u aadayseen waa taad ku xallin jirteen xamar lagu xallin jiray Gaalkacyo ama tuulooyinka u dhow aawe odayaashii labada reeraha u badan labadaba aawaye waa nasiib darro waxa socda marka anigu waxaan kula talinayaa dadka dan waxay reer mudug iyo Puntland iyo galmudugow idinkaa dan isla leh heshiiya oo meel kasta wada jeenta maalin la arkaba nin anigu aan labada dhinac aqaan baa dhimanaya maxay ku dhinteen lama yaqaan waxaa la yidhi maxjar iyo meel baa haddii la dhiso waa labadaba ay ku isticmaalaan maxaa dhib keenaya marka anigu waxaan idinkula talinayaa inaad heshiisaan waana ku farxay maantay barlamano inaad heshiisaan laakiin meesha aad leedahin kismaayo iyo xamar iyo idinkaa dan isugu jirtaa heshiiya waa salaamantiin